tan iyo markii uu xilka ka dagay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliye waxaa muuqata isbedel weyn oo ku yimid habkii shaqo ee kulamadii joogtada ahaa ee u dhaxayn jiray maamulka gobolka iyo sidoo kale gudoomiyaasha degmooyinka iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaado gobolka Hiiraan. intii uu xilka hayay Muuse Salaad Wehliye kulamadaasi waxay ahaayeen kuwo si joogto ah u qabsoomi jiray isla markaana uu gudoomiyuhu si dhow ugu dhageysan jiray warbixinada ay soo gudbinayaan mas'uuliyiinta degmooyinka iyo sidoo kale deegaanada. shirarkaasi waxay inta badan diiradda lagu saari jiray arrimo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen amniga, dhaqaalaha iyo sidoo kale kaabayaasha asaasiga ah ay u baahan yihiin degmooyinka, iyadoo ay kulamadaasi ay ka soo bixi jireen qodobo wax ku ool ah oo lagu wajahayo caqabadaha jira. hase yeeshee xilligan xaadirka ah ee dalku wajahayo xaalado bini'aadanimo oo aad u adag sida abaaraha kuwaasoo sababay biyo la'aan baahsan iyo sidoo kale yaraanta daaqa xoolaha, waxaa muuqata inuusan jirin ajenda cad oo maamulka gobolka u degsan kaasoo lagu samata bixinayo bulshada gobolka Hiiraan. taasina waxa ay muuqaysaa doorkii lafdhabarta ku ahaa kulamada heer gobol gaar ahaan degmooyinka iyo sidoo kale deegaanada gobolka Hiiraan kuwaasoo lagu xalin lahaa dhibaatooyinka haatan taagan. sidoo kale colaadaha ka taagan qaybo ka mid ah gobolka ayaa ka mid ah arrimaha mudnaanta leh oo shirka xilligii uu gudoomiyaha Muuse Salaad Wehliye looga hadli jiray, balse hadda waxaa muuqata gaabis iyo hoos u dhac ku yimid ka hadalkooda iyo xal u helistooda kadib isbedelkii hoggaanka gobolka. isbedelkan ku yimid joogteynta iyo miisaanka kulamada maamulka gobolka iyo sidoo kale degmooyinka ayaa su'aalo ka keenayo sida uu maamulka cusub ugu jawaabayo duruufaha amni, bini'aadanimo iyo horumarineed ee ka taagan gobolka Hiiraan xilli ay bulshadu ay si weyn ugu baahan tahay hoggaan firfircoon iyo sidoo kale go'aano wax ku ool ah.